لنا في رسول الله أحسن أسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب فضل حسن الخلق. باب هذا متكان باب ويه فضل حسن الخلق دبيعد وناجد فضلك أيلاد هذا كان محله فضلكاس بوسكي سوي وعشر كيني أفراد كتاب كيني تحفة المشتاق. باب كان waxaa looga hadlayaa akhlaaqda wanaagsan fadliga ay leedahay sharciga islaamka dhexdiisa. الحديث الرابع مروي waxaa laga warinayaa can abi hurayra ayaa laga warinaya radiyallahu anhu qaala abu hurayra wuxuu yiri su'ila an-nabiy nabiga ayaa la su'aala sallallahu alayhi wa sallama ma aktharu ma shay midka ugu badan waa maxay oo yudkhilul jannata jannada gelinaya shay janna lagu galo maxaa ugu badan. qaala nabigu wuxuu yiri at-taqwa huwa shaygaasi at-taqwa alla ka cabsi iyo husnul khuluqi dabeecada wanaageeda. wasu'ila waxaa kaloo nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wa sallam ma aktharu ma yudkhilu an-naara qofka naar wax geliyo maxaa ugu badan. qaala nabigu wuxuu yiri al-ajwafani waa labada godan oo macnaha gudaha ka duleela. al-ajwafani waa labada gudaha ka duleela. al-famu afka iyo wal-farju farjiga way saasa laga wada ajwafanka. xadiidkan waxaa warinaya saxaabiga la yiraahdo Abu Hurayra tarjamadiisa hore u soo qaadanay. saxaabigaas Abu Hurayra wuxuu leeyahay nabiga waxaa la weydiiyay calayhi salaatu wasalaam wax dadka janno geliya maxaa ugu badan. markaasuu nabigu wuxuu yiri alla ka cabsi iyo akhlaaqda wanaagsan wax janno lagu galo waxaa ugu badan ilaahay ka baaqdo ka cabsato iyo akhlaaqdaada hagaajiso labadaas ugu badan. wax oo qofka naar geliyana waxa ugu badan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam labada dhaxda ka godan waa afka iyo farjiga ka wada. al-ajwafan al-fam wal-farj afka iyo farjiga labadaas ayaa ugu badan ayadana wax naar lagu galo. labadaba waxay tahay sababtu qofka afkana dhibaato uu ku geysanayaa oo dadkii inuu ku xanto oo wax uga sheego oo ku caayo ayaa laga yaabaa. farjigana sidoo kale macaasi iyo dambiye ilaahay uusan ogolayn ayuu ku galayaa. saadarteed marka labadaas ayaa ugu daran buu nabiga calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu naar ku galo. الحديث الخامس حديث كشناد السجنه مروي وحال laga warinaya can Abu Darda saxaabiga la yiraahdo radiyallahu anhu can nabi xaalu ka wari sallallahu alayhi wasallam qaal nabigu wuxuu yiri ما من شيء مجرى أو أثقل كعرس في الميزان ميزان كدحيس من حسن الخلق أخلاق وناجدك. حديث كان محاورنا يسد دريمي سبع أبو درداء صحابي قال يرادو وصحابي مشهور أو كترسن خير أنصار وحكم ده هاي أنصار تقرض اللي أقانجر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورجي مدينة النبي وكسر عليه الصلاة والسلام مجي عيسى وحاليرا عويمر ابن مالك ayaa la yiraahdaa nin aad iyo aad u qaali ayuu ahaa oo xikmad badan. saadarteed waxa la jiray xakiimu hadhihi al-umma ummadan muhammadiyada midka ugu xikmada badan ayaa lagu tilmaamay inuu ahay sayyidul qur'aan waa ahay la yiraahdo xagga cilmiga qiraa'aadka ama quraanka xaqiisane boqor ayuu ku ahaayo Dimashq marka magaalada la yiraahdo hadda caasimada Suuriya ah laakiin birigaas dhulkii Shaam la isku dhigi jiro caasimad u heeday ayuu joogi jiray ragii marka quraada ahay oo xagga qiraa'aadka cilmiga looga dambeeyay oo aqoonta lagu soo xirasto kamid ahaa. waxa la sheegaa maalintii Badar ayuu soo islaamay Uhudna waa ka qayb galay dagaalkii Uhud la yiri. saxaabiga marka wuxuu ahaa saxaabi zaahid ah oo xagga adduunyada aad iyo aad maaragtay aan isku mashquulin oo adduunyada aan jeclaysanin wax allaala wuxuu helo sadaqaysto oo hore ula baxa ayuu ahaan jiray. saxaabigaas asaga ah ayaa xadiiska warinay wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ma jira shay ka culus xagga miisaanka markii la fiiriyo oo acmaasha qofka marka la miisaamayo shay akhlaaqda wanaagsan ka culus oo miisaanka ka cuslow og
مجرى إير النبي عليه الصلاة والسلام درسينا إن شاء الله تعالى أفراد هل كاسان كسو كوبينا تن إيه كلنتي الدنب هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشفنا من الأخلاق أعظم رشفة فأحيت لنا أمجاد عز وسؤدد توالت مزون الخير في كل بقعة